السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا ونكسن داود الكسور وهذا ورح الدلك إذا فاع عالم النبي سجارة قضبة وركه ودور كورونا وحكمده. حلبان عبد الرشيد محمد حدق وكمد البرلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية وعندما جبلان كو أمانة دجال كخوارجتي كل جيران. دوقيمة المدير حبنا كترسن خوارجتي داعش وحركة عيبورها على مسكاد قبل كبري. أخبارات ذاك عالم كوركيجان وحكمنا إسرائيل أيام دوقيمة ونسكفر السمرة كغزة هي حالة أبوك وهكتاجن غزة. markale kulanti waxaan wanaagsan daawada ku soo dhawaada warkii oo dhan xilbaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada Jubbaland ee geesiyaasha ku amaanay dagaalka adag ay kula jiraan kooxaha argagixisada ee khawaarijta sida warbixintan uu ku eedeeyay Maxamed Xuseen Salaad. Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo markii horeysay ka qayb galayay kuna lagu taageerayo dawladda Jubbaland laguna soo horjeeday kooxda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aad u bogaadiyay una amaanay ciidamada kala duwan ee geesiyaasha Jubbaland meel walba ay joogaan sida nafarnimada u difaacayaan bulshada iyo dawladda Jubbaland. xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamada har iyo habeen ay u taagan yihiin sharafta difaaca nidaamka saxda ee ka jira dawladda Jubbaland. waa kan xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo arrimahaasi ka hadlaya. ciidamada qaybahooda kala duwan ee reer Jubbaland inay mudan yihiin wax kasta oo qof lagu abaalmariyo meel kastaba ha joogaan ama gada ha joogaan ama jubbada hoose ha joogaan ama deegaano kale ha joogaan waa dad ciidan ah rag iyo dumar oo runtii fahamsan waajibaadka saaran innagana waxaa waajib u ah inaan garab istaagno duruufo adag bay ku shaqeeyaan waqtiyo adag bay shaqeeyaan marka aynu hurudnay shaqeeyaan markaynu safraynay shaqeeyaan haddoon hoolka ku jirnay bay taagan yihiin oo habeen iyo maalinba u taagan yihiin ciidamadeena qaranka aan isbarbar taagno innaga oo aan u kala hadhin rag iyo dumar waxaana rabaa inaan maanta soo jeediyo reer Jubbaland waxba iyaan meelaha la hadlin waxba iyaan hoos loo waxaynin أحمد يدولة مدحوينا أحمد يدوسيرة يا برلمان هتان شعب كل شقين إن المشقين كران هتان أضياش الطاقم كهرس عن المشقين كران رجبلان رج يضمر مدحوينا هو بينوكنا وعسكري أنت إنك لنا ما أنت لقى بالعسكر معنا قبلها بوليسكا هي نبت سجدة هي أسلوبته هي هوشة جودها قبطان رجونها على فرمها هي هوشة حقوق وضعها النجا قبل الأرض دوقيمة علوس وكبن كوحدة داعش أيها حركة عقبة كمذا برها المسكات هل كاسو دغال أي كودان عندما بوتلان سيدا ربحانت المركز الكويديو أما كوفا فهمي وليها إذا حسن يوسف محمد تفضيلي wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo ka fuliyeen saldhigyo maleeshiyaadka Daacish ay ku lahaayeen buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa xalay duqeymo culus ka fuliyay toga baalade gaar ahaan nawaaxiga ceelka Maraagade oo ay ku go'doonsan yihiin fircad ka tirsan maleeshiyaadka Daacish duqeymahan oo ka dhacay aaga Maraagade ayaa lala beegsaday godad ay ku dhuumaleysanayeen fircad ka tirsan Daacish oo la rumaysan yahay inay ku jiraan saraakiil sarsare oo Soomaali ah saacadii u dambeeyay ciidamada difaaca dawladda Puntland ayaa howlgallo culus ka fuliyay laba jiho oo dhacato gabaalade uuna ka mid yahay ceelka Maraagade halkaas oo lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Daacish saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca dawladda Puntland oo warbaahinta u xaqiijiyay in halkaas lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada Daacish
waxaana saraakiishu ay xaqiijiyeen godadka duqeymaha xalay lala beegsaday inay ku dhuumaalaysanayeen 100 dagaalame oo ka tirsan kooxda Daacish. xasan yuusuf maxamed shafadiyare agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Jubbaland iyo wafdi hogaaminaya ayaa kormeer shaqo ku tagay saldhigga booliiska ee degmada Dhobley. Cabdinuur Xayi Xaasha ayaa warbixintan ka soo diray Dhobley. wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Xareed Cabdi ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay deegaano hoos yimaada degmada Dhobley. kormeerkan ayaa lagu eegayay saldhigga booliiska iyo goobaha qorshuhu yahay in laga dhiso xarumo 24 saac u adeega bulshada. intii uu socday kormeerka ayaa waxaa qayb ka ahaa taliska booliiska degmada Dhobley, saraakiil ka socotay taliska booliiska Jubbaland, xubno ka tirsan ururka haweenka iyo dhalinyarada, iyo sidoo kale qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda amniga Jubbaland. ujeedka kormeerkan ayaa ahaa hubinta diyaargarowga xarumaha bulshada loogu talagalay si loo xaqiijiyo in adeegyada la qorsheynayo ay si toos ah ugu adeegi doonaan shacabka degmada Dhobley iyo nawaaxigeeda. kadib markii uu soo dhamaaday kormeerka, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Jubbaland Xareed Cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhobley, wuxuuna sheegay in kormeerku qayb ka yahay dadaalada wasaaradda ee lagu xaqiijinayo amniga iyo adeegyada bulshada 24 saac soconaya, isagoo xusay in wasaaraddu ka go'an tahay inay dhisto xarumo casri ah oo bulshadu si toos ah ugu adeegaya. barnaamijka JBB ee ay wado wasaaradda amniga gudaha Jubbaland iyo hay'adda UNDP waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan soo kormeernay sahan aan ku sameynay xareeyaha booliiska ay degan yihiin. waxyaabo badan oo wanaagsan waan aragnay, waxyaabo ka gaabis nagu jiraayo wixii ka gaabis ahna kullu waa si hoose baan soo gudbin doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. waxaan noo suuro galay inaan tagnay xarumo badan oo booliiska ay leeyihiin, kaasoo macnaha loogu talagalay in laga qabto howlo badan. howlahaasoo ay quseeyaan bulshada noocyada kala duwan. waxaan nala socday oo nala shaqeynayay taliyaha booliiska, afayeenka booliiska Jubbaland, waxa kale oo nala socday tababarayaasha booliiska Jubbaland, ururka haweenka, dhalinyarada, odayaasha. inta waa ka koobnaa macnaha socodkeeni. waxyaabo badan oo wanaagsan waan aragnay insha Allah, laakiin waxaan doonaynaa in waxyaabo badan oo iyadana in laga dadaalo oo la sameeyo loo baahan yahay. waxaa ka mid ah hadda barnaamijkan u socono la yiraahdo physical assessment ee sahanka ah. waxaa la rabaa meel xarun ah oo la sameeyo, xaruntaas oo lagu sameynayo xarada booliiska gudaheeda lagu sameynayo. xaruntaas marka waxay ka shaqeyn doontaa inay la tacaasho daacadiyada dhaco, ama dumar ha ku dhaco, ama rag ha ku dhaco, ama si kale ha ku dhaco, ama sharci kale oo la jeebiyo ha noqoto. waxaa la doonayaa in la helo xarun ku dhex taalo booliiska ee ka shaqeyso maxay ahayd 24 saac shaqeyso. xaruntaas oo la heli karo xilli kasta ay bulshada ay u baahato inay adeega loo fuliyo in la helo. marka wax wanaagsan baa noo soo qabsoomay. howlo kale oo badan oo aan qaban doonana waa jirtaa insha Allah, hoosh way si socon doontaa. waxa ku xoga consultation ku xoga oo si looga doodo meesha xarunta ay ku haboon tahay. inkastoo la isku wada raacay ama garanaysaa la isku raacay meelaha dadka jilicsan ay joogaan in xarumahaas laga furo si adeega iyo socodkooda maaragtay uu yaraado, oo maadaama ayna haysanin wixii tasiilaad ay ku bixi lahaayeen ama ay transport baawur ay ku raaci lahayn, maadaama aanay helaynin adeega in dadka barakacayaasha iyo dadka maaragtay qaxootida ka soo noqday oo inta maxay ahayd ritaaniska la yiraahdo in macnaha meelaha ku dhow in lagu sameeyo. marka waa arrin wanaagsan baa noo qabsoontay insha Allah. waxaan filaynaa barnaamijkan inuu wax badan bedeli doono, isbedelo badan oo wanaagsan inay imaan doonaan baan filaynaa insha Allah. waxaan aad ugu mahad celinayaa taliyaha booliiska, akhyaartii kale oo nala socoto inta aad baan ugu mahad celinayaa. nidaamka iyo maaragtay dawladda waxaa la doonayaa annaga inaan ka shaqeysano, cid noo maqan oo nooga shaqeyn ma leh. wadankeena annaga la doonayaa in dib u dhisno hadii Ilaahay yiraahdo. marka wanaaga iyo maaragtay wada shaqeynta wanaagsan inaan sameeyno oo ku dadaalno hadii Ilaahay yiraahdo. dumarka iyo gabdhaha ururka haweenkana aad baan si gaar baan ugu mahad celinayaa. waa xubnaha aadka muhiimka u ah oo maaragtay
dowlad dhiska iyo maaragtay wada shaqeynta iyo wanaagga inta badan ka shaqeeyo aadana ugu mahad celinayaa insha Allah howlaha kale oo noo yaalayna way noo soo socdaan oo wixii berrito ka sii dambeeyo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo uu noo socon doona hawshana waa laba bari waa hawshan aan ku soo afjarayna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo marka aad baa u mahadsantihiin Abdurrahman Jamaan Jubaland TV degmada Doble taadaawada lama kana akhbaraadka dhanka caalamka Israa'iil waxay duqeymo xooggan ka wadaa wili Mareykanka Gaza oo xaalad adag ay ka jirto duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa saacadii la soo dhaafay si xooggan uga socday magaalada Gaza gaar ahaan nawaaxiga xaafadaha Jabaila al-Nazra al-Sabra iyo sidoo kale al-Zaytuun iyadoo weli la dareemayo falcelinta ku saabsan go'aanka rasmiga ah ee lagu shaaciyay macluul ka jirta Mareykanka Gaza caafimaad ayaa maanta ku dhawaaqay in tirada dadka ku dhintay Mareykanka Gaza ay gaartay 62,622 iyo markii dagaalku bilowday bishii Oktoobar 2023 kuwaas oo intooda badani ay yihiin haween iyo carruur sidoo kale ila wareedi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Falastiin ee Wava in tirada guud ee dadka waxyeeladu soo gaartay ay gaartay 157,673 halka weli meydad badan ay ku hoos jiraan burburka kuwaas oo aan weli wax laga qaban karin sababo la xiriira xaaladda ammaan iyo baahida qalab ee haysata ambaasida iyo kooxaha gurmadka rayidka waxaa sidoo kale la sheegay in 61 qof ay dhinteen halka 308 kalena ay ku dhaawacmeen 24 saac la soo dhaafay kuwaas oo la geeyay isbitaalada Gaza warkii waad kala socoteen Jubaland TV taasay ku soo koobay tan wararkan dambe nabadgelyo